asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal meel kastoo aada joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxay kula tahay oo toddobaad kasta xilligan si toos ah aanu idinkaga soo baahinay stuudiyaha tv-ga universal ee magaalada tan london. shalay oo taariikhdu ay ahayd 20 juun waxa ay ku beegnayd maalinta guud ahaan dunida sida weyn looga xuso dhibaatooyinka haysta qaxootiga, iyadoo toddobaadkanna si weyn dadweynaha caalamku ay ugu diyaargaroobayaan inay sameeyaan waxyaabo guud ahaan la doonayo in kor loogu qaado sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta qaxootiga. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka burburka xoogan uu haysto, islamarkaana dadka qaxootiga ah ay gaareen guud ahaan caalamka, iyadoo qaxooti aada u fara badanna ay ku barakaceen isla gudaha dalka Soomaaliya. inta badan marka la eego qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalalka dariska waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada qaxootiga ee Dadaab oo ay ku nool yihiin dad gaadhaya nus milyan, iyadoo inta badanna meelo fara badan oo caalamka ka mid ah ay si weyn uga hadlaan dhibaatooyinka haysta qaxootigaasi ku nool xerada weyn ee Dadaab, iyadoo dadka qaarkiisna ay ku tilmaamaan inay tahay magaalo ay ku nool yihiin qaxooti marka ay eegaan tirada ama dadka faraha badan ee ku nool xeradaas. sidoo kale dalka Yemen ayaa waxaa ku nool yana qaxooti Soomaaliyeed oo aada u fara badan oo yana dhibaatooyin xoogan la kulma, iyadoo weliba xilligan kacdoonada ay ka jiraan meelo fara badan oo dunida carabta ah ay si gaara u saameynayaan dhibaatooyinkaasi qaxootiga Soomaalida. dalka Liibiya laf ahaantiisa markii dagaalada iyo rabshadaha xilligan ka soconaya ay bilowdeen, waxaa in badan oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool ay la kulmeen dhibaatooyin, waxaana qaar fara badan ay gaareen xerooyin qaxooti oo ku yaala xuduudka u dhexeeya dalalka Liibiya iyo Tunisia, iyadoo sidoo kalena guud ahaan aan la soo koobi karaynin magaalooyinka iyo dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida. haddaba su-aasha barnaamijka caawa aanu ku eegayno waxa ay tahay: maxaa u diidan dadweynaha Soomaalidu in ay nabadda ka wada shaqeeyaan si looga hortago xadgudubyada iyo dhibaatooyinka xoogan ee haysta qaxootiga Soomaalida? barnaamijkan waxaa marti iigu ah Dr. Cabdicasiis Muumin Mayow oo isagu ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Britain iyo dalka China, islamarkaana xilligan ku sugan magaalada tan London, iyadoo goordhowna sidoo kale khadadka taleefanada aan daawadayaasha fursad siin doono in barnaamijka ay nagala qayb galaan si dhammaanba ay uga qayb qaataan aragtiyadooda ku wajahan sida ugu habboon ee nabad lagu heli karo, islamarkaana looga hortagi karo firxadka iyo fakashada faraha badan ee qaxootiga Soomaalidu ay ku gaarayaan meelo fara badan oo caalamka ka mid ah, iyadoo haba yaraatee in badan oo ka mid ah meelaha ay gaarayaanna dhibaatooyin ay kala kulmaan. waa tahay marka hore Cabdicasiis kusoo dhaw barnaamijka. marka hore waxaan rabaa inaan salaamo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dunida, waayo hadda Soomaaliya meel kasta aad tagto waxaa arkaysaa Soomaaliya meel kasta ay joogto. marka waxaan leeyahay shalay oo ahayd maalintii qaxootiga dunida, dad Soomaaliyeed aad ayay u taabatay qaxootinimada iyo qaxootiga waxay tahay. waan ka dharagsanahay anaga naftirkeena wadankan joogno waxaan ku nimid marka hore qaxootinimo, marka qaxootina dhibkeeda waa ka wada dharagsanahay, ama gudihiisa wadanka aan qaxooti ku noqono oo guryihi laga soo qaxo, ama dibadaha East Africa ama Carabaha ama dunida Yurub, meel kasta Soomaaliya meel kasta wadanka degtay adduunyada waxaa arkaysaa Soomaaliya oo qaxooti ku ah oo dhiban. marka qaxootinimadu maxaa Soomaalida u geeyey oo dhibaatinkaas heerkaas leh oo adduunyada Soomaalinimadu magaca Soomaali in la sheegto qalqiil galay xataa oo aan ka xishoono magaca Soomaali in la sheegto maxaa keenay? waa nabad la'aan. waa gartay. marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa in aan ka buraajino, aan u sheegno nabaddu maxay tahay, sidee lagu heli karaa. waa gartay Dr. Cabdicasiis, intaanaan u gudbin nabadda iyo siyaabaha lagu heli karo, dabcan sidaad la socoto 20 sannadood dadka Soomaalidu waxa ay ahaayeen dad firxanayay meelo fara badanna oo ka mid ah xerooyinka iyo magaalooyinka caalamka waxa ay ku nool yihiin iyagoo qaxooti ah. haddii dhibaatooyinkan lagu sii jiro, ma aaminsan tahay in ay si laba laabmi doonto tirada oo la arki doono dadweynaha Soomaalida oo badankiisa xerooyinka qaxootiga ku jira? way sii laba laabmaysaa keliya maahan, magaca Soomaaliya baabi'i doontaan haddii intaas kusii socno 20 sano kale ama xataa 10 sano kale. dadkii way daaleen, dadkii waxay ka taagan yihiin wax aan la qiyaasi karin ama
erey lagu fasiri karo male dadka heerka ay ka taagan yihiin. laakiin markaad aragto dunida inta badan marka la qiimeynayo dalalka horumarkooda waxyaabaha lafdhabarta waxaa ka mid ah dadka shacabka ee ku nool dalalkaas wax soo saarkooda, aqoontooda iyo garashadooda. haddii dadweynaha Soomaalidu ay sidan ay u yihiin dad u liita oo qaxootiga maaragtay xerooyinka qaxootiga daadsan oo aan aqoon lahayn oo dagaal maalin kasta ku jira oo xabad ay ka dul dhacayso, taas ma u fasiran karnaa inay tahay macnaheeda Soomaaliya oo baaba'san kasoo marka laga soo tago oo kaliya maalin kasta dadka inay ku mashquulaan siyaasadaha, laakiin shacabkii oo baaba'san ma loo fasiran karaa inay tahay dalkii iyo dadkii oo baaba'san? Absolutely yes. horta haddii aan dareen la-aan horta Soomaalida dadkii awoodda lahaa oo nabadii keeni kari lahaa ayaa ka seexday oo wadanimadii dadka dhibaatada hadda ku jirto waa dadka daciifka ah oo danyarta ah ama sida haweenkii, caruurtii iyo dadkii disabledii waxyaalihii dadkii liitay Soomaaliya oo laakiin dad inteeda badan Soomaaliya Yurub soo gashay ama awood u leh waxaan dhihi karaa way ka seexdeen, waayo haddii xoog la saaro oo la iskaashado nabaddu aad u sahlan tahay in la helo. dhinaca kale markaad eegto ka sokow qaxootinimada waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin oo waxaa jira hoos yaala lafahaantooda oo ay ka mid tahay gaajada, cudurrada, xadgudubyada loo geysto dadka Soomaalida ee xerooyinka ku jira, kufsiga iyo mararka qaarkood in يعني dhiigii lagu yaqaan dadka Soomaalida oo meesha ka baxo oo aad arkayso gabar Soomaaliyeed oo dulman oo aan ka hadli karin xadgudubyada loo geysanayo. dhinaca kale marka laga eegana maamulada jira ama ururada dhinaca siyaasadda waxaad moodaa inaanay lahayn dareen arrimahaas ay uga hadlaan oo waxay ku mashquulsan yihiin xilal iyo waxyaabo mararka qaarkood aan shaqayn karin haddii bulsho aanay jirin. iyaga ma lagu tilmaami karaa inay qayb ka yihiin xadgudubyadan sii xoogeysanaya maadaama aanay ka hadlaynin, dareenkooda aanay ka muujinayn, mararka qaarkoodna aanay ka warhayninba? horta mushkiladda innaga dhex taagan waa khilaafkaas oo dadkii Soomaalida markii dagaalada dhaceen qabiil oo kale. qabiilka Soomaaliya ma jirin lixdamadii iyo todobaatameyadii. waxaa dhici kartay nin saaxiibka ah inaan aqoon qabiilku yahay iyo qofku yahay oo saaxiibtinimo iyo Soomaalinimo iyo wadannimo lagu shaqeyn jiray. laakiin hadda markii dagaalkii Sokeeye u dhacay, dagaalkii Sokeeye waxaa dhacday in hubkii qof walba hub uu helay oo hubkii uu guri walba uu hubeysmay markii dadkii ay u maleeyeen inay isku xirmi karaan ama isu difaaci karaan qabiil. laakiin arrintu saas maahan, waa qaldan tahay. Soomaaliya isku luqad waa, isku diin waa. haddii khilaafka iyo xadgudubka la joojiyo oo la ismideeyo way sahlan tahay. waa gartay. dhinaca kale haddaan eegno inta badan markaad eegto dadka Soomaalida gaar ahaan qaxootiga ku sugan tusaale ahaan dalka Yemen oo kale, kuwa ku sugan dalka Kenya, kuwa ku sugan dalalka kale ee caalamka, xadgudubyada loo geysanayo mararka qaarkood waxaad moodaa in ay yihiin kuwo Soomaalida loo baahnaa inay ka danqadaan oo ay dareemaan in mararka qaarkood xadgudubkan aanu xataa Soomaalida oo kaliya ku koobnayn oo dad kale oo ajnabi ah ay ku xadgudbayaan dadkii Soomaalida ee sharafta lahaa. marka ma la dhihi karaa dhinacaas haddii dadka Soomaalidu ay ka eegi lahaayeen waxa ay dareemi lahaayeen muhiimadda ay leedahay qofka isku aad tihiin isku qofka isku afka tihiin isku luqadda aad tihiin inaad heshiin kartaan? mushkiladda ugu weyn waxa waa khilaafka. horta haddii unity ay jiri lahayd wax ma burbureen, waa la midoobi lahaa, wax kasta waa la xalin lahaa. marka khilaafkii ayaa wuxuu keenay burburkii waxay noqotay in dhibaatooyinka xadgudubka hadda adduunyada meel kasta hadda TV-ga shalay waxaan ka arkayay qaxooti badan oo Greek joogo kale dhibaatooyin loo geysto maalin walba TV-ga waxaa ka arkaysaa. marka Soomaalinimo iyo wax difaacaya male Soomaalinimadii. haddii Soomaalinimo ay jirto safaarado male, ururiyo male, wax kasto anaga naga saaraa korka, wax kasto hadda wadankan aan joogno kale dhibaatooyin badan oo dhacay jirto ay sameeyaan dad kale qurumo kale noo kala rag ama noo dhow oo magacyadeen isku dhiibay oo qaladaad ay galaan ayaa korka laga saaraa. marka korka laga saaro wax la difaacay ma leh. marka anagii
ayaa u victimize qof walba marka haddii unity jiri lahayd waa wada hadli lahayn waan danqan lahayn waxaan dhihi lahayn waxaana jiray aan ka hortagno. waxyaabaha la yaab kale cabdicasiis waxaa ka mid a markaad aragto qof Soomaali ah oo ku dhibaataysan dalalkii qurbaha ama ku dhibaataysan mararka qaarkood xerooyin qaxooti oo ku yaala qaaradda Yurub ama Asia ama Afrika in waxa kaliya mararka qaar ka dhidhiya ay yihiin tusaale ahaan hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin oo maamulada ka jira dalka Soomaaliya ama dawladda ku meel gaar ah hata ama ururada kale ha haatee ay adag tahay inaad aragto iyagii oo ka hadlaya oo la dhibaatooyinkaas uma dul qaadan karno dadkii u doodaya isku dayay xataa waxyaabo mararka qaarkood laga yaabo inay sameyn karaan mas'uuliyadaas iyaga saaran maamulada iyo dhinacyada siyaasadda dalka Soomaaliya ma isleedahay way gabeen. Soomaaliya dhibaatada taagan waxay tahay dadkii awood lahaa ama awood lacageed ha ahaato ama awood shaqadii iyo beesha jagooyinka loo dhiibo kala ha ahaato ayaa waxay ku adeegaan si selfishnimo ayaga aniga marka dadkii uma danqadaan marka dadkii masaakiintii oo dan yareed tabar darnayd meesha ku baabaysa unity ma jirto dadkii kalsoonidii dhuntay khilaaf badan jira oo dadkii inay wada fariistaan oo kursi inta meel iskugu yimaado la wada hadlo oo waxaan laga wada hadlo xadgudubka laga wada hadlo la daaweeyo la isu yimaado la yiraahdo maxaa tabanaysa la iscafiyo wala sameyn kara way saalan tahay laakiin maxaa diidan tusaale ahaan markaad eegto dhinacyada dagaalamaya dabcan dagaalkooda wuxuu saameyn ku yeelanayaa waa haweenka caruurta dadka waayeelka ah awowyaasha ayeeyooyinkii oo aad moodid in mararka qaarkood xabad kasta oo dhacda ay saameyn ku keenayso inay gurigeedii ka barakacdo inay meel kala tagto inay gaajo ku noolaato inay cudur maaragtay dabcan ay khatar ugu jirto inuu ku dhaco maxaa u diidan inay mararka qaar fiiriyaan dhinaca bani aadanimada oo ay eegaan dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo saameynta ay bulshada ku yeelanayso halka ay ku mashquulsan yihiin oo kaliya xilalka iyo nidaamka iyo siyaasadda oo kaliya waa dareen xumo qofka bini'aadamka maskaxda hogaamisa anaga qofka bini'aadamka gacmaha iyo lugaha iyo meel kasta maskaxdaas laga xukumo xayawaanka waxa uu gudsanaa waa maskaxda marka maskaxda day shaqeyn weydo qofka xayawaanka wuxuu dhamo ma leh marka dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedaa in dareenkii ka dhamaaday in kalsoonidii ka wada dhamaatay xadgudub iyo nin kasta wuxuu u maleeyaa inuu ku gaari karo wuxuu rabo khilaafkan iyo mashaakilada uma jeedo laakiin aniga waxa ii muuqataa hadii la midoobo la wada fariisto dadka aqoon-yahanada wax garadka inay wadanimo ay timaado oo ay fariistaan la isxilqaamo initiative